ay maanta ICC Khaatumo fadhiisanayso hogaamiyahayagu oo kursigiisii uu fadhiisanayo intaas horta waa aqoonsigii oo dhammaystiran aqoonsi kale oo dee shahaado laysa siinaya iyo waxyaabo kale oo maaragtay afka laga yidhaahdo dowlad maahe wasiiradii iyo baarlamaankii gidi maanta khudbadii taariikhiga ahayd waad arkayseen horta taas waa taa oo wax iska aqoonsi dambe oo la haray ma jiro kursigana haddii ilaahay ka dhigo dee invitationkana waa loo waday madaxweynaha dee toos baa loo magaranaysaa aqbalay marka toos buu digaya madaxweynaha Soomaaliyana laga waday oo ra'iisul wasaaraha loo soo magaranaysaa fariinta waday marka hawshaas way iska dhamaato dee annagu aqoonsi dambe noo haray ma jiro saasa maamulkii maaragtay uu ku taabagalay mid kale mid ogaado oo waxaan oo dhan walaalday inagoo dhan xalaalana la ka xukumaa meeshan xalana la yiraaho iyo beesha caalamka ayaa Soomaalida sida xukunta macala xasanka macala ra'iisul wasaaraha laftirkiisa gidi waxaan dabada laga soo riixay waana lagu soo maxay ahayd xukumayna yimaadaan maamulkan iyagoo horta isagama imanay horta taa ogaada xaqiiqada dadku runta isuma sheegaan maamulkayga maanta maadaama dadka Soomaaliyeed xalanaha laga xukumo wala ra'iisul wasaare wala madaxweyne gidi dadkan waa lagu soo xukumay inay tagaan maamulka ICC Khaatumo waana yimaadeen maanta markii loo yimi sida aan ku dhisanay iyo sida maaragtay maanta wasaaradihii aan u soo bandhignay iyo qaabka ugu dhaweysiin iyo sida aan wax u qabsanay iyo wallahi ashqaraar bay u dhinteen waxay ku leeyihiin maamuladii kale waxaana dhisateen iyo meelaha aad nagu qaabilaysaan iyo baarlamaanka sidan u eegyo maamuladii idinku horeeyay mabaleba maamul goboleedyadan kale idinku horeeyay oo Soomaaliyeed mabale reesisiyo waa dadaasheen dee maasha Allah meel fiican baa soo gaarsiinay annagu maanta milahareegi waan quranaa marka dadka Soomaaliyeed amaan istiini inta caloosh furaneed noo hambalyeynaysa calooshu sidaay maamulku hor u socday sharaf karaam waaye waa maasantahay wax yar baan idinku update garanayaa ilmaad rayaal xaflad ballaaran baa magaalada Laascaanood ka socota koor yar baan hadda yar baan idinka baxay halkaas aan wax ka eegay waxa weeye hawshu meesha ugu wacnayd bay maraysa waxaan kaloo idin sheegayaa oo rabaa inaan idin la wadaago qoladii magaalada Muqdisho joogtay oo xildhibaanada ahayd oo Soomaaliland ka soo jeeday mudaharaad bay bilaabeen 25 qof miyaa lagu yiri hadda waraaq soo saaray oo ay leeyihiin firdhiyo waa ka xunaa inuu magaalada Muqdisho lagu soo casuumo aduu halkaas ay maraysaa halkaas يا سو ساري باتر عبد الكريم ولا الكعلي يا سو ساري تيمكي جوبسن iyo kooxdii halka joogtay oo waxa weeye ku عبد الكريم كوينلاندر tan inala joogtaa maal gelisay ma garan ha macnaha waa laga warhayaa hadda sheekadii waa la isku fahmayo waraaq bay soo saareen kuweeniina waa maqan yihiin Soomaaliya arinta soo ballan waadu waa reebantahay hoy yarkan maaragtay meesha soo dhaqorayo ya gooyay lorda ilaa isugu waa iska kaftamaynaay waa yahay macna waxaan ku sheegayaa anigana de halaysiyo waad hadasheeno been waa isku maxaa qolkiina inuu ku safri wada anigu waa isleeyahay war doon baan tagayaa waa baxayaa maxaa horta qolka maad inoo soo furtay qolka maalmaha ma soo furtay oo soo noqonaya aan wadhow hadda qolka soo galana was idinka baashayay waxaan siyaasad hayo wad yaabisay ma ka joogtiis demay waa caadi anagu ku soo dhaweynaa inaad waa caadi dib male dhageysta laakiin waxaan sheegayaa waraaqada ku haystay gooyay maxaa ka carootay ma inaan maal gelisaa ka carootay war Cabdi Karim adaa ku haystay mudaharaad soo halka ka socda ma maal geliyay halkan buu hadal yaabis ka Muqdisho buu laga socdaa mudaharaadka adiga maal geliyay khaatuma down adaa maal geliyay guunay mudaharaad bay bilaabeen Cabdi Karim horta waxa weeye qof walba sidoo jecel yahay wuu hadli karaa aan ku sheegay sidoo jecel yahayna qof waa u dhigi karaa aan ku sheegay nimankan maanta hadda meesha isku soo qarxiyay meesha yimid waxba horta lama imaanin dhagaxyo meel la dhigayo waa arkayo leeyahay maalintii hore gobsan baa celisay dheen waa iga qosliyeen wallahi laga horta dhageysada gobsan ku waalanne gobsan ma celi kartay xasa shiiqa meesha soo diray dhageyso mid baa inaad ku sheegayaan wiilal badan hadda meesha ka hadlay waxay dhaheen waxa loo fiirinayaa qaatumo maamul goboleed waxa loo fiirinayaa waxayna daba taagan tahay galmudug horta galmudug waynu ogaanaayo de waa 3-4 qabiil oo isku darsamay mursada anigu hadda ka dhashay habar gidir mareexaan iyo dir intuba dhul ay leedahay ayay ku midoobeen horta
dhulbahantana hadda dhulka maaragtay gobolka iyo barka inuu haysto u malay maayo gobolkana dee waxaa laga hirgelin karaa marka caqliga maaragtay dee caqli fayow lagu fiiriyo diiradda lagu fiiriyo anu ma ka hadlayo dee jabbo iyo waxay samaysteen laba guri oo meelahan xafiisyo taageen oo maamul goboleed bay u ekaadeen an ma ka hadlayo waxaan ka hadlayaa maamul goboleed maxaa noqon karaa sharciga muxuu qabaa dastuurka Soomaaliya maamul goboleedka kee noqon kara ayaa laga hadlayaa maahane in maartay iska jaboodo iska jaboo kara qaatumo maamul goboleed bay noqotay firdhiya la casuumay waxa soo dhan waan dhigi karaa it's not make sense xuma samaynayso anu hadda fiiri maamul goboleed hadda qaatumo haday noqoto kama xumi wallahi inaan ka xumayn haddii xitaa ooga laga dhigo mudaharaadka wada inaad way ka muuqataa waad maya aniga mid baad diidanahay in ma aragtay la jalbo wax lagu waxeeyo maamul goboleed jalbo lagu keeno fiiri waa runtiin waxba samaysateen waa isnidaamiskan iyo horumarkan waxa ka keentay Soomaaliland maadaama in badan Soomaaliland ku jirteen ayaad waxaan halkaas ka soo saarnay hay aqoontaani waxaan iyo systemkan Soomaaliland horta ka barateen oo taas hadda waa guul weeyaan horta niman wax bartay oo waxoodii maaragtay samaystaan noqoteen laakiin maamul goboleed ma noqon kartiin weeyaan su'aashu maamul goboleed hadda Xasan Sheekh maadaama uu la dagaashan yahay maamul goboleedidii waaweynaa halkan wuxuu ka dayayaa nafis siyaasadeed oo uu ka rabo maaragtay weynay hadaba way su'aal sax ma ku weydiiyay inaad rabto su'aal ma ku haye way bal su'aal lama weydiin karo gabadha way ma ku weydiiyaa su'aal adoo wadanaya adigu hadeerto hadaad leedahay way waxaad leedahay isu way ma ku weydiiyaan aad waa ada qaadanaya ku soconaysaa macnaha inaad hadaad ku weynay horta waan arkaayadu waad aragtada waan ixtiraamaya way waa ka soo horjeedaaba على كل حال هذا شرحيا ويا أدو هذا ليه هاي ما بنقون كرتي ناس عنا ضوح ما أنت كشرة وح بلي آذن كو حقري كران معه ميل اللي بتقليه ضد اسمه مولية سيستم سمايستي يجر نحدو ده وحوي نظام كودي عشور بحين تأيدت كدول النمدي سماينية سكورة كودي كعنت كوهية أيام بيشي كترته مركان هذا كت هذا كور راعه ويا ما واحد ليه هاي ما أنت أنا قوات الصوماليات بعناي أقوس دون نبي معترف معنا ما بقوم بهني أنا ما برهمنا أقوس ما برهمنا ما أنت دين ردي الجرائم يا مشاريع ذي قاعدين إنه أنت ساينا هذا نقول فلان دولة الصومالية أنا واقع خاص من دي جانا ذي إني شوكتو إن سياسة هن وشوكتو ميلتري هن وشوكتو ويا سياسة الصومالية بقول لسم هذا الدولة أرمها صورنا وحربت إني كيف إيديست ويا تانس كان سومري دولة دوي أوكتهاي الدون كيودون بهذا مقرنا يسمر والبوح اللي يرى كونفرت الصومالية كتلسان مركب وقوي إني تما دوي كو خاص بنتاي أتليست وعلىها صوردكتو سي أي هذا وجوجل هالكاس ويا شوف أنت سؤال عشان واحد ربع يا صدق لقد أنت بويان بق ويا هذا مركب أريجا هذا مركب أريجا كوديبو waxa ay laascanood ka socda wax dadku hadda inkiri karaan ma aha waxa aad adiguna inaad hadda diidi kartid ma aha qaabkee waayay hadaad leedahay idinka leeyin ma aqoonsanayo maamul ma noqon kartaan maxaad adigu rabtaa xagee annaga la dhihi lahaa aada marka horta inaad idinka Soomaali horta adigu dhigayso idinka Soomaali wax weey waxa tiraadeen waa ka tagna yaad marka adigu hadda bal wax sheego bal dadka wuxuu sheegay inaad aan ku fahanay horta inaad waxaan idin faahsiinayaa wax weeyaan maadaama waqooyi in badan لها قوني قوسة هاد دولة سوماليات ما إيمان كرتو هرتا ماشا opportunity لغا أركي مركا أقلقا لأنو وحا لها اللي دادك أقلقا أصاحيبكا أنا لما هالله دادكان عادي فضو هاي سيسكا واران دادكاني مركا ماشا إيمانيين وحيو أركين opportunity سياسادات إن وقوي لتيجي كرو أو ميل كميد لتيجي كرو أو ولي ببلاي مينستر وتيجي كرو يوزيردو إن عالم كورتو لتسيني قفكي أقلي لويان مكت إن حتى عالم كلا تصينيو مر لبعض إن ماشان ضد ما أركتي سومالي وإن ماذا إيه سومالي نمدو أي كجو أنتها إيه من نمدو إني جوجان أو ولي بوقوي قد حديثة عاصمة دي لبعض صدحات ويان لسعانات عاصمة أفراد ويان دلك تاس أيها لتصيني عالمك opportunity أنا صاقلي وين كفى إذا سنة دولة الصومالي ويكفى إذا سنة لكن أقونسيقو إن هذا هو another issue ويان إن لا أقونصدو مامل قبالي لا أقونصدو another issue وإن يبوحسا وحي للربي هذه في أنكو قدرو ما يسؤال كان كوكو سيدريا
aan warka dhameeyo deynaadan ay iga soo dhexgelina haddii laascaanood la aqoonsado waxaa furmaysa albaab ah in xaafad kasta oo ku taalo Soomaaliya ama gobol kasta oo xaafad ku taalo Soomaaliya ama degmo kasta Soomaaliya ku taalo in ay laftirkeeda iskeedu istaagto tiraado ana maamul goboleed arba okay meeqa maamul goboleed marka bariga yani koonfurta Soomaaliya meeqa goboleed ka soo bixi kara توينا أنا هذا رحت أقلي كفكرنا مقت نفتر كذا ما نكل لي هذا حصل شيء وأنا سمارتيا أنا كانوا كفا إذا سنة ما هني ما مول قبلت مدة والله قن عنايا فردية ما دام الرئيس الوزراء ماشي يمد أقول سنة لا إيمانين إنه مسك وضع هذا القصة قريب قالوا وقن عين لقو قن عنايا لسعانات وين فهمنا تاس وأنا كبا حياة ديكو صعدة وايه ورد بالسوق واي مين دي سلام عبد الكريم وواك سلام ورلجنت حسن وكوري انا روايه حسن باله يعني تقول حسن ودي حسن وقاضي حسن حسن باله إن هذا واحد هو كوسع عني هذا شيء هذا ضد كان هذا ضد بين الأسعار هو كادم بيوادي بيسي هذا الكلام قطيبة ما ينور ويجي هذا الكنين مرة ورا هذا يكون عليني هذا المعنى ولا بقول سوق والله هذا كل حاجة بهرت سوق محمد هذا محاد قنصتك قبله أنا أقول والله أنا كنت جواب ولكن الواحد اللي حسن سي لما سؤال بس لها كدرتين وإن هذا حسن ودي واي حسن بارودي لكن لو هذا سؤال قال بعد ذيك شيء واي حسن وبالقاضين هذا هي حسن سودو أحمد يوانسين الناي هي بسم الله الرحمن الرحيم waa idin wada salaamay akhyaarta meesha saaran oo Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed wadanka Soomaaliya wada degan annaga gooni u goos ma naqaan laakiin wadanka Soomaaliya aan garanayna marka horta ummadda Soomaaliyeed waa salaam marka koowaad hadalkana waaba iga horeeyay topiga laga hadlayna war uma haynin laakiin wax yaran ku soo gaaray oo ma taqaanaayay waxba ismaad ah iyo waxyaalo kale oo la sheegay horta nimayaha waxa waa xaqiiqda dhabta in la wajahaa fiican dadkana been iskugu sheekeenin oo reality-ga la aado gaalada waxay dhahaan the truth is a truth runta waa run been in qofka iskugu sheekeeyo way yara moogtaya inkastoo aan ogahay meeshan TikTok ay tahay qof walba uu rabo afkaaya duleelo uu hadlaayo maartay uu wuxuu rabo iska sheegay maarta oo been ah ama reerkiisa uu ku difaacayo meeshan qof walba reer uu saaray marka xaqiiqda dhabta waa saas marka waxaan rabaa inaan topiga aan galo oo ah ma taqaanay in qolkayga safranaya inaad jaab dowladda Soomaaliya horta reality-ga inaan u noqonaa fiican maamulkan weyn oo curdunka ma taqaanaay ummadda Soomaaliyeed oo dhan kusoo hiratay oo ma taqaanaay maamulka SSC Khartoum State of Somalia kasoo bilow ilaa iyo ceerigaaba ilaa iyo buuhooda 1 kilomitir nabad maanta ka taagan calankiis ka taagan yahay oo wax dhiba ka jirin oo argagixis ka jirin dad isdilaayo mindiyo isku wata jirin maxaan ku raaa kooxo iska soo horjeeda iisan jirin maamulada Soomaaliya dhan marka aragtay fiiridid xataa ku dar kuwaan oo magacooda muxuu ahay Somaliland la baxeen oo hargeysa burco wadanka Soomaaliya ku yaalin oo si gooni ah ayaga dhahaan waa goosanay marka lagu daro xataa maanta nabadgelyo darro xuna ka jirto maarta laakiin maamulkan SSC wax nabadgelyo darro kama jirto waxa waa horumar ku tilaabsaday waa arkayna inta yar u jiray oo ma taqaanaay dadkiisa ay isku tashteen ilaa inta laga ceeriyay dadkii ma taqaanaay ku soo duulay dhulkaas maartay oo ummadaas muslimiinta oo guryahooda degnaa ay iska ceeriyeen marka waxa waay maxaa dawladda Soomaaliya oo soo noqonayna marka dawladda Soomaaliya maxaa ku jiro waay maxay ka heshay maxay aragtay waxay ka aragtay opportunity weyn meesha muuqdo opportunity-ga muxuu yahay maamulkan waa maamul weyn waa maamul ma taqaanaay maanta ugu ciidanka badan Soomaaliya wadanka Soomaaliya la dhaho ka soo bilow low yacde ilaa iyo Dhoble ka galay waa maamulka maanta la dhigi kara dhulkiisa waa wada ammaan waa maamulka dadkiisa is wada raacsan yihiin 100% aysan kala maqnayn maamulada Soomaaliya marka aad kulli waa la isku wada haystaa waa maamulka kali ah oo la dhigi karo wax uu qabtay wixii dadka uu ka qaaday cashuurta dadka uu ka qaaday arkayni ceelalo qoday wadooyin uu sameeyay isbitaallo dhisay iskuulo dhisay madaaris uu dhisay wixii ku burbureen dagaaladii oo dhan dadkii oo cadawga dagaalada ummadda muslimiinta ku soo qaaday dhulkii ay burburiyeen oo dhan dib loo dhisay waxaana lagu dhisay waxay ahayd cashuurta marka dawladda Soomaaliya waxay aragtay inayba tahayba fursad weyn ummadda Soomaaliyeed oo dhan ku wada dayan karto horta aqoonsi cidna ma bixido oo ma taqaanaa galmudug oo kale hadda cidna aqoonsi ma siin maxaan ku yiraahdaa Hirshabelle cidna aqoonsi ma siin maxaan ku yiraahdaa Puntland cidna aqoonsi dad walba waxa qofkiisa saa wixiisa la yimi kadibna waa loo raacay suuye kan SSC-na waa la mid dawladda Soomaaliya oo raacday maanta tusaale waxa kugu filan
wasiiradii ugu badnaa xildhibaanada ugu badnaa dowladda inteedii badneed 9% caawa waxay joogtaa magaalada Laascaanood oo amni ah oo magaalada weyn oo Soomaaliyeed ah oo ra'iisul wasaarihii ugu sareeyay iyo madaxweynaha ka hadlaya arkaysay invitationkii loo soo fidiyay arkaysay madaxweyne Firdhiye xafidullah ta'ala madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed ana mustaqbalka u rajeynaynaa inuu noqoyo because waxa waa nin oo waxay uu sameeyay fiir ummadda Soomaaliyeed waa in ay matqaan isku dayataa fiican waxa uu sameeyay wax politician kala Soomaaliya ay sameeyeen ma meel dagaal ka dhaceen dib ka jira rafaad ka jira dagaal waxay uu xaliyay dharag markii shan dadkii dhan ayaa madaxa la wada qabsay politician ana xamara joogay dadka dhan waxay leeyihiin hoo kam sidaan macquul ma dhici karto yani ma fahmina marka adiga way soo kookoob oo sheekada halkan buu soo rid waxa way meesha maanta ii joogto